أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلاء بالقرآن. بركاتك كم تبني الإنسان بالطاعة فيك وبالإحسان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، نقول ليال وجلسديني لباد نوشي كيني أبوابتا خيرك ee looga faa'iideysan karo bishan Ramadaan iyo bilaha kaleba, laakiin gaar ahaan bishan maadaama ajirka uu labalaaban yahay, cibaadada qofka uu sameeyana ujur fara badan uu ka helayo, waxaa muhiim ah inaan isxasuusino cibaadooyinka qofka uu sameey karo. cibaadooyinka walaalayaal waxaa ka mid ah inaan ku dadaalno salaadaha waajibka, maadaama aan ka soo sheekeynay kuwa sunnooyinka ah in lagu dadaalo oo rawaatibta ah. حي النبي عليه الصلاة والسلام وحكسر إنه يري ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تضوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. لبيتهم ركعة دود متشر وقف مسلم وتكنية أن واجب هين صنوين إلا رب سبحانه وتعالى جنة أي بيت يقري وقدسها. حديث كان مسلم أي صوت صاري ومحبيبة، وحديث كورنا يسنا وحيتر النبي عليه الصلاة والسلام كان كم مغلي كذب كما نتين لا يتوان كان رجعوا سيدا يسلم إذا تابعينتي حديث كسوقاتين يسيع علماء أسوق لقاتين بوا مسلسل ويوم والبوح لها كما نتين مركي أن مغلي لا يتوان كان رجعنا لح رجعوا والظهر كأفر كهر إذا لبنا كدم بيسه لبنا مغربka ay ka dambaysaa, labana cishaha ay ka dambaysaa, fajirkana laba ka horeysa. rawaatibta waa inaan ku dadaalna weeye. sidoo kale waxyaabaha ama cibaadooyinka muhiimka waxa kamid ah bishan uga faa'iideysan karno salaatu duha, waan ku dadaalno salaatu duha. nabiga calayhi salaatu wasalaam waa yiri salaatu al-awaabiin xiina tarmidu al-fisal, salaada kuwa toobadkanka badan ay tukadaan iyo kuwa laabadka badan ay tukadaan waa marka nirgaha ay cagaha ka gubtaan, waa waqtiga ay qorraxdu aad u kulushahay barqadiya. salaata duhaha la tukado laba ragcabaha ugu yaraato, shay sunna ah aad iyo aadna u fadliyo wanaag badan. salaatu duhana waqtigeedu waxay ka bilaabanaysaa laga soo bilaabo qorraxda markay soo dhalato in yar kadib oo si fiican ay u soo qaadanto ilaa iyo qorraxda bartanka samada isku taagto in yar ka hor ama duhurkii wax yar ka hor. waqtiga inta leeg salaada tukataahi waa salaatu duha ee sunnooyinka ah, waana shay markaa muhiima weeye. nabiga calayhi salaatu wasalaam dilo fara badan ayaa ka soo arartay dadka ku bogaadinayo oo ku baraarujinayo, maxaa yeelay waa cibaado aad iyo aad u weyn badan weeye. waxaan ogsoonahay qofka muslimka xibin walba ka mid ah in maalinkii uu ka sadaqeeyahay ayaa laga rabaa. sadaqooyinka uu ka bixinayana waa mid saaran oo laga rabo weeye. qofka cibaado walba iyo wanaag walba uu sameynayana waa sadaqo, waa uga gudmaysaa xibnaha qofka 360 xibin ah. laba ragco oo salaatu duha qofka uu tukado ayaa waajibka ama sadaqooyinkaasi ay uga gudmi karaan. cibaadooyinka muhiimka waxa kamid ah salaadaha sunnooyinka guud ahaan in la badiyo, maxaa yeelay waa shay aad iyo aad u wanaag badan weeye. gaar ahaan waa in salaadaha sunnooyinka guriga lagu tukado. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa ka sugan inuu yiri ijcalu في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ورسالات ديننا غريهنا وحكمدا كسيا oo ah ka dhiginina kuwa qubur ah. waa cibaadad aad u weyn badan weeye. salaadi waajibka ah masaajidka markaad ku tukato inaad aado halka iyo gurigaada sunnadiina aad ku gudato waa cibaado dul saaran weeye. waxyaabaha muhiimka ah cibaadooyinka muhiimkana waxa kamid ah walaalayaal qofka muslimka markuu salaada subax uu tukado oo jamaacada uu yimaado la tukado booskiisa inuu fariisto ilaa qorraxda ay si fiican uga soo qaadmaydo
kadibna uu laba ragcad tukado oo sunno ah geesna salaatu duxa ka ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay fadli aad iyo aad u weyn badan oo fara badan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man salla al-fajr fi jamaa'a thumma qa'ada yadhkuru Allah ta'ala hatta tadlu'a ash-shams thumma salla كانت صلاته كحجة وعمرة تامة النبي عليه الصلاة والسلام وحلية مجر غف مسلمة الصلاة دي فجرت كذا بوسكيسي كو باقي النقطة إلا قرح ذيك الصبح كدبنا الله بركع سنته كذا هي إلا وحوقد ديجان تايا سو حج عمرة سي حج عمرة لما يسرنا تامة ومقبول الأقبلي وحج مبرورة عمرة الأقبلية وعبادات يدوين بدون صدره ميسو وإنا كفايدسنا فرصدهاس إردها خير كانوا كفايدسنا بشان رمضان أو كله هذه صلاة الصبح تكتو هاي سكود دي إن جرويه هالحلال وأدوات يرسحته هذا سيحانة يسمرك عبادين كي وناجي أصلا الكارت هذا خريسته القرآن كذا خريسته أو قرأ هذا يصوب بهذا ورقعتين كي أتكتو بحكي الضم بيه هذا ملك الآدي هذا شيء فنيسه والنظام حل كذا وحروبها أنه لا يالسيدو كله سنوينك أما أبواب تيردها خير كأ مهم كأنه كل ده لو حكم ده إن كفايدة سنو إن صلاة قفك لنتي مسلم كأ جناسدي سي إن لقطو كده إن لنا راعه حي لو عباده يفضلي آدي أدوين بدن أياك السجن النبي عليه الصلاة والسلام وحولي من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيرات ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان عليه الصلاة والسلام وحولي قفكي نقف مسلم هاي بنتي جناسدي سي كتو كده قيراط أيو اللي هاي هدو سير عنا قيراط قيلوات أي الله قدر يا مركز ولا بقيراط سيدا سكوي لنا يا مركز صحابة يراد النبي الله ولا بد قيراط محيك ليهن مركز يرين مثل جبلين عظيمين ولا بورود أو وين أو كلا أيو النبي قال عليه الصلاة والسلام عبادين كولا لي المهم كحكم ده بشهر رمضان أولاد يعرور تلفتوا ده إن عبادة لغو تربية وعبادة لغو بربارية والصلاة دي لغو بربارية صون كيلا لغو بربارية النبي عليه الصلاة والسلام وتويري حديث صحيح عنه وقصة أروري النبي عليه الصلاة والسلام يحل ينظروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 فرقوا بينهم في المضاجع إن أولادي إني عروتنا واحد أمرتان صلاة هدي تضرب جرا أي نقدان طبعا هدي جران كو جراع هدي ديدان وكوسدان كو جراع أيو النبي عليه الصلاة والسلام أما كنت تشوفنا يانا لا بيدي كو كلا سارة ومهم إن لو تربية صلاة عروك الصغير صلاة دي واجب كوما أنتو سقان جارين لكن والجو بربارين يا والجو تربية يا دينك يا محاسن تيسي وناقيس أيا الأمر يا الله فريا والجو تاجرية سيدا يسلم إذا صون كلفتيسا وإن لو تربية وسلف رضوان الله عليهم والصحابة وجوه الريان وحيا هاي العروت ذير إن صون كوبر باريان صغير أمرك وسومية وحالجيا إن لا مشغولية ولا عيارسية وصون كسيدا الجموتية أيا صورة جلا وشيء مركب مهم إنه لقى فايدة سنة سيدا كل ولا ليال عبادوين كمهم كوعة كمده قف كمركب وتكذا الصلاة أذكرت كده بكذا الآخرية إنه كده ده لقف كمهم ويه أذكرت عقب الصلاة الآخرية صدق سبحان الله يا إن توكل الحمد لله يا إن توكل الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الوسوق جبيه وعبادات يدوين بدن ويه النبي عليه الصلاة والسلام وحكسوا إنه يري قفكي أنت سخرية غفرت له خضاياه وإن كانت كزبد البحر قفكي أنت سمية دنبيجي سوى الله فيا ولو بدأ هركيد وكلعان نقداني عبادة مهمة ويه حتى كيفيين يقابوك النبي وكسوا أرور عليه الصلاة والسلام وقابوك أي كميتها هاي صدح داس كلية إن لقوا أكيستو مد والبوا كمان طبعا قر الآخرية صدق قر بيسكن نقونيان أما أنتو دا صدح داسا إن من كوية طبعا الآخرية وحيسكن نقونيان صدح صدن يصدح قري يسكن نقونيان إمام النسائي رواية صحيحة حقي أيسوري أو صدح داس مد والبوا كمدا شن إلا باتن إلا آخرية وحين يسكن نقونيان تضواتني شن عبادة وين بدن ويه كم مشغولين بنانكي السوق ميلك الآد وحكوت رميدا وقت آد كوير شنت الدقيقة كسير بكير وحوي الدلال
wanaaga iyo khayraadka iyo daacadka rabbi ku dadaala tabaaraka wa tacaala. sidoo kale walaalayaal cibaadooyinka in looga faa'iideysan karo bishan ramadaankan marayna waxaa ka mid ah taraawiixda in lagu dadaalo, taraawiixda in la tukado iyo tahajjudka in lagu dadaalo oo qofka muslimka xil uu iska saaro oo imaamka uu salaada la bilowdo taraawiixda lana dhammaystirto. waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay afdalu salaati bacda alfariida salaatu leyl, xadiidka muslim uu warinayo weeye. salaadaha waxaa ugu fadli badan salaadaha waajibka kadib waa qiyaamul-leylka la tukada ugu fadli badan salaadaha sunnooyinka oo dhan. bal fadli gaar ah ku soo arooray oo nabiga uu yiri qofka imaamkiisa la xirta salaada qiyaamul-leylka ee taraawiixda la xirta ilaa imaamkiisi uu ka baxayo, qofkaasi waxaa loo diiwaan geliyaa habeenkii oo dhan asagoo taagnaayo oo kale ayaa loo diiwaan geliyaa. qofka sooman cibaadooyinka muhiimka ah oo inuusan hilmaamin ay tahay waxaa ka mid ah inuu qofka markuu afurayo afurkiisa inuu soo dedejiyo oo qorraxdii hadduu hubsadaba inay dhacday inuu afuro. waxaa yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfidra, dadka khayr ka zuuli maayo inay ku sugan yihiin inta afurka ay dedejinayaan. marba qorraxdu hadday dhacdo oo habeenkii uuna soo qaabilo oo maalinkii ay dib u sii jeesato faqad afdara saa'im, siduu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam kii soomana waaba afuray. marka afuro waxa ugu fadliga badan ee ugu wanaagsan ee lagu afurana waa qofka timirtii inuu cuno, gaar ahaan timirta midda rudabka ah oo intaysan aad ku sii bislaanay carjooda ay tahay macaan tahay, qofkii hadduu heli karo uu ku afuro waa shay sunno ah aad iyo aad u sii fiican. hadduu waayo suu nabiga samayn jirayba timirta qofka inuu aado timirta noocyadeeda kala duwan, haddii kalena uu biyo qofka ku afuro waa shay markaa muhiim ah weeye. sidoo kale walaalayaal cibaadooyinka muhiimka waxaa ka mid ah qofka sooman rabbi subxaanahu wa tacaala fursad ayuu siiyey, ducooyinkiisa ayaa la aqbalayaa, allabarigiisa ayaa la dhegaysanayaa. qofka inuu ducaysto maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay inna lisaa'imi cinda fitrihi dacwatun laa turad, qofka sooman markuu afuraya agtiisa waxaa taalla oo la siiyey duco aan la radinayn. haddaba rabbi subxaanahu wa tacaala bari, bal waqti walba intaad soomatoo dhan ayaa ducadaada la dhegaysan oo la aqbalayaa. waxaa yeele xadiidka saxiixa waa tuu ahaa alaaatun laa turaddu dacwaahum, saddex qolo ducadooda lama radiye waa la aqbalaa. dacwatu saa'im xataa yafdur, kan sooman ducadiisa waa la aqbalaa ilaa uu ka afurayo ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waxyaabaha muhiimka walaalayaal waxaa ka mid ah qofka uga faa'iidaysan karo bishan la marayo suxuurta lafteeda in la dib dhigo waa shay sunno ah, sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waafaqsan. suxuurtuna waa shay baraka ah, tasaxaruu fa inna fi suxuuri baraka, war suxuurta dadow maxaa yeelay suxuurtu waa shay baraka ah ayuu nabiga leeyahay calayhi salaatu wasalaam. cibaadooyinka walaalayaal waxaa ka mid ah qofka markuu afurayo ama uu suxuranayo ama uu casheenayo oo cuntada uu dhammayso inuu rabbi subxaanahu wa tacaala uga mahad celiyo oo uu yiraahdo alxamdu lilah alladii adcamanaa hada warazaqniihi min gayri xawlin minii walaa quwa. maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina allaha la yardaa can alcabdi an ya'kula alakla fayaxmadahu calayha aw yashraba asharba fayaxmadahu calayha. rabbi subxaanahu wa tacaala addoonka ayuu raalli uga noqdaa haddii uu wax cuno inuu alla uga mahad celiyo ama uu waxabo rabbi subxaanahu wa tacaala uga mahad celiyo. sidoo kale walaalayaal waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah qofka sooman inuu sameeyo laga rabo sadaqooyinka inuu ku dadaalo. sadaqooyinka midna waa waajibo, waa zakadii, ama ha noqoto zakadii maalka ku waajibayday ama ha noqoto markii la afuro oo bisha ay dhammaato sakaatulfidriga qofka inuu ku dadaalo oo zakadii waajibkahayd uu iska bixiyo. sidaa iyo si la mid ah sadaqooyinka sunnooyinkana inaad bixido oo infaaqiso oo dadka masaakiinta aad ka faa'iidaysato, gaar ahaan waqtigan la marayo iyo xaaladaha culculusoo jira iyo dadkaasay ku sugan yihiin rabbi subxaanahu wa tacaala oo ka warhayo oo dad badan shaqooyinkii in badan ay ka kala irdhoobeen oo ka kala baaba'een. waxaan u baahanay inaan ka faa'iidaysano maxaa yeelay sadaqooyinka la bixinayo waa wanaag aad iyo aad u fadli badan, khayrad fara badan baana ku sugan. nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu leeyahay as-sadaqatu tudfi'u al-khati'a, sadaqada aad bixisaahi gefkii aad samayda ayay daminaysaa. gefkii waa qofka uu galaahi waa dab oo kale, dabkaasaa kaa damaya weliba si sira inaad u bixiso oo si hoos aad usii bixisana
كما بسيجرته النبي عليه الصلاة والسلام وحو ليهي وصدقة السر تضفع غضب الرب صدقة سيدا سرتا الله بحيه وحي الدمينيسا على الله تبارك وتعالى ضدكين مركا معروفك يوناق يخيراتك أدقار سيداهي وأجر آدياد أبلارا وناجر آدياد وين بدن صنائع المعروف تقي مسارع السوء أي النبي الله عليه الصلاة والسلام معروفك يا السماها يوناق وضدك أدقار سيداهي إن لقدن كآت كوحن أي قفك كإلى لنساء يحالد حن وأدو الدارين سوى شهدوا حل أوايو أي قفك كإلى نساء مروا الباهي خلقك وناقي خيرات كذا جارسي عبادين كان مهم كولا الله يلوح كمده إن لقى قيب قاته بيوض إلهي للرسايو بشهر رمضان عبادة آدي أدوين بدن ويه أجركينا وأوسي كرديا سيديو كلاماهن إن مساجد للرسايو أما لضيع تريو إن أتكفى إذا ستوح قدر ستو حي النبي عليه الصلاة والسلام وتجري من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة قفك الله سبحانه وتعالى درتي قولي أول لساهي ودي مسجد لساهي الله سبحانه وتعالى أي جنة قولي أقل لساه أي النبي عليه الصلاة والسلام وخير آدي يضفر بدن وي سوى هولا ليال عبادوين كمهم كوحا كمي قفك الصومن لقنا يضد بدنين إني لا يلصدان أما أي فوضيستان وددك أؤاد سلامته جماعة هذا السوقارتنا ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي النبي عليه الصلاة والسلام وحلي أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام ورددوا سلام تفافية وضدك عنتدا قودسية وحكوسة دقيستا رحمكي قرابة حريرية هبينكي ددك انت ورددك قرع سينا يانتو كذا قيام للك أصاكع حديث كاسنا دي حديث صحيح وترمذي ورنا رحمه الله تعالى لكن السلام عليكم هذا تيرادو تمن أجربات الله دهي ورحمة الله هذا سر عيد الله باتن وبركاته هذا كسي درتنا وصدن بعبادات يدوين بدن ويهدي لكم السلامنا والسلام عليكم ورحمة الله اللي يراهدو إن أتكفل عليد وردده وآترا وعليكم السلام وشيء واجب ويه قعنت أول إسسيق ليانا لفت دواء عبادك عليه محي النبي عليه الصلاة والسلام وحوت لما وقفك لا بقف ولا لا هدي اسكو يمادو قعنتي اسقاط سيان واسقليان إن دنوبتي أي كدادانيسو لكن حالات la marayo iyo waqtiga la marayo qofka waa in wacyiga uu ilaaliyo waxa ila cudurada faafayaahay gacan qaadka waxyaabaha ugu badan ay ku sii faafayaan weeye rabbi subhanahu wa ta'ala cudurada duu geesanaga mariyo waa cibaado aad iyo aad u weyn badan weeye jalsadeeni maantay inta ayaan ku soo keenana insha Allah ta'ala mideeni saddexaad ayaan noo ballam ah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk أقبلت جمالا يا رمضان نورا يتلاء بالقرآن بركاتك كم تبني الإنسان بالطاعة فيك وبالإحسان